حلال لقوتا كان حماته أبيت قلين urur-siyaasadeedka Xaqsoor ayaa maanta xuduudda taageerayaashiisa ku soo bandhigay magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera iyagoo u lahaa wareegga saddexaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka. Kumanaan ka mid ah taageerayaasha urur-siyaasadeedka Xaqsoor ayaa isugu soo baxay jidadka waaweyn ee magaalada iyo xafiisyada ay gaarka u leeyihiin murashaxiinta ka sharaxani. way baahan inay codkaysiyaan si ay ka dhigo si wanaagsan socnaa xildhibaanada degmada Berbera ee gobolka Saaxil oo wali iyagu taageeradoodii iyo bandhigoodii sameynaya iyadoo maanta qorshaha u bedelay sar hoobadeedu ku sheegay in xildhibaan waliba baaxadiisa taageero uu gaar u soo bandhigo gobolada degmooyinka iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland waxa leeyahay idinkuna wayna cadaaladaysaan tartanka iyo ururada tartamaya qaadana insha Allah kariim inaanu si hufan ugu shaqeeyo daacadnimo leh oo arrimaha bulshada ka shaqeeyo gobolka Saaxil marka waxaan leeyahay calaamadeedu waxa weeye 700 halay calaamadiyo taasi waxay taageerayaasha ay ka badsanayaan ay dawladda hoose tirada waxay jiray safay baa jiray wadadu markay ninka madaxda guriga sareetara iyada ay yeelato kale xatay reer Berbera yiraahdan runtii taas tuma dhacayso waxaan aragnay rag madaxa oo guriyahooda wadada ku jiraan wadadiina laga duway kii miskiinkaana way qaadanaysaa kii madaxdaana wadada ay yeelato ka walxan taas ma dhacayso diyaar mootina codkiina ay siisaan musharax Faruur Caalin ayaa maanta isaguna wacdar halkaasi ka dhigay Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV Berbera.